marka ay sirdoonka ogaadeen reer galbeedku in Jaal Caydiid oo caafimaad qabo walulkooda sii batay Dr. Cabdirasaaq ayaa faleebas suray markuu faleebas suray wuxuu dhahay hal kontaroolo hadday ka dhamaatay mid kale inta loogu bedelo bas markii Dr. Cabdirasaaq baxa meel badan iyo dheer u lahaayuu soo laaba doona nin kale oo doctor oo la yaqaan caamo hadda dhow dhintay ayaa soo galay ninkii ayaa faleebo kale u kala bedelay faleebadii faleebo kale oo diyaarsan oo isaga diyaariyay iyo suray 25 daqiiqo gudahood Jaal Maxamed Faarax Caydiid xidido gacmihiisa xidido waaweyn ay yeesheen buk asaga dhawoos bedelay wuu taahay Xasan Bariise inuu og yahay geeri Jaal Caydiid ka daay gabadha uu dhalay amiiri halka ay la degan Holland ee gabadha Daawudka u dhashay ayuu si ogeyn wiligiis soo wacay bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan rabaa inaan u joogo Xasan Bariise iyo wasiir Juxa oo codadiisii qarsan waayay inta aan Xasan Bariise oo marqaansan oo soo malabsanayay aan u jawaabin waxaan rabaa inaan idin dul maro sheekooyinka Jaal Maxamed Faarax Caydiid ee baa u naxariistay halgamaaga ummadda Soomaaliyeed ninkii wiiqa awoodii Unisom ee Mareykanka oo horkacay Jaal Caydiid 24 bishii July ayaa xabad sniper ah oo la soo riday gaarigii uu saaray ku dhacday dabeetna halka dhabarka ahay uga dhacday iyadoo soo qabowday waliba ona xabad xooggan ahayn marka xabadii kamay bixin ee way gashay waxa Jaal Maxamed Faarax Caydiid daweeyay Dr. Cabdirasaaq Ali Xasan oo nin cayro iyo badala ahayo caanaha oo dhaqtarka gaarka Jaal Caydiid ahaa marka jaranku waxa ma noqon habeenkii xigtay maalinta xigtay Jaal Caydiid waa fiicnaaday qala daweey xabadu ba ku jirto u sheekeynayo aad u sheekeynayo wax dhiba oo weyn oo xabada ay gaarsiiso ma jirin laakiin xabada way ku jirtay marka waxa la yiri fariibooyin hala suro iyo waxyaabaha la suro dhaqtarka waxba ku taliyo wixii ku soo jira marka oo la suray waxa marka la yiri gudiga fariisto waxa la yiri dibadda loo qaado marka waa diiday Jaal Caydiid wuxuu xabad si looga soo saar ma dibadda la ima qaadayo waa diiday dibadda aan marba u dhax sababtoo ah internationally attention-ka ay la qabay waxay ahayd haddii Jaal Caydiid ilaahu naxariisto dibadda loo qaado in nimankii Mareykanka iyo xulfadiisii ay gaadayaan hospitaalada ay ku qaarijinayaan marka waxa fureed kaliya meel la hubo waxa ka fureed ee Liibiya ka fureed meel la hubo maamul qaafi saaxiib ahaay marka waxa dhacday adigu meeshii marka xogaa maamul xumaa dhacday ayaana dhacday marka ay sirdoonka ogaadeen reer galbeedku in Jaal Caydiid oo caafimaad qabo walulkooda sii batay laakiin markii warka soo galay in Jaal Caydiid dhaawacmay ayuu Caydiid shiraad qabtay barnaamijku ka baahiyay idaacadda codka shacabka isagoo caadiya oo nadiif ah dadka la hadlaya ka jawaabaya war ka baxday warkii laga sii baahiyay idaacadda Ali Mahdi Maxamed yuu Jaal Caydiid ka jawaabay marka caadi xaaladu ahayd waxa dhacday marka galab isagoo soo bogsooday oo generaalku fiicnaaday oo dadka inta badan ka kala tageen oo macnaha aanan aad mashquul loogu ahayn uu iska wanaagsanaa Jaal Caydiid oo kaliya walwalka uu ahaa oo Cabdirasaaq yiri ana ku filan ana qalay markii hawsh dhamaato ana ka qalay xabada oo yiri xabada ku jirto yaa waxa dhacday Dr. Cabdirasaaq ayaa faleebas suray markuu faleebas suray wuxuu dhahay hal kontaroolo hadday ka dhamaatay mid kale inta loogu bedelo bas markii Dr. Cabdirasaaq baxa meel badan iyo dheer u lahaayuu soo laaba doona nin kale oo doctor oo la yaqaan caamo hadda dhow dhintay ayaa soo galay ninkii ayaa faleebo kale u kala bedelay faleebadii faleebo kale oo diyaarsan oo isaga diyaariyay iyo suray 25 daqiiqo gudahood Jaal Maxamed Faarax Caydiid
xididdo gacmihiisa xididdo waaweyn ay yeesheen bug asaga dhan wuu isbedelay wuu taahay markaa absaaqa la doonay gaariyaa lagula ala carray markii la arkay xididiis soo bug soo yidhaaheen isaga dhan ay sun la qaadsiiyey generaalkii uu yimid shid saasuu gacantiisu dhahay wuxuu dhahay maxaad u ogolaateen in qof kalenta meesha uu soo galo waxaa la yidhi may adaa tiri hebel ha sameeyo hebel ha sameeyo waxaan jalla ceydid marka uu hadlay wuxuu yidhi dictoorkaasi waa la sumeeyey hadalkiisu uu jiidmaayey waa la sumeeyey lamana taaba karo ninkii aad soo qabateen xabadda soo riday oo nin fog aan ahayn iyo ninkaa ismeeyey si cod dilacsan ku yidhi waa joogtaa qajo siciidaa joogto marwadiisiyaa joogto darawarkiisiyaa jooga sal cabdisaaqa nool weli gabar kalentoo dimaashihiisoo joogto gurigaa joogta oo nool laba wiiloo reer jalafa ha joogo nin ayaa la sacada ha joogo ag fadhiyey oon hadda aan information is magaciisa inaan mataqaanaa aan sheego oo guriga wax ka joogay ayagoo dhan baa marqaati furay arrintaa waxaa referency leeda waxaan aan ka sheekaynayo marka waxaa dhacday ninkii jalla ceydid ahaa suntii ayaa saaqday xididiis waa la xakamey waayey salabsaaq waxba ka qaban waayey waa dhintay allah yarxamo subaxdina idaacaddaa laga baahiyey subaxdina idaacaddaa laga baahiyey generaalka wiilkii marka oo sniberka ahaa oo qolooyinka reer galbeedka ay soo sidcaabgareeyeen oo ahaa nin la qaaday oo lasoo tababaray shaqo socoto ahayd ninkiina waa la dilay waa la qariyey lagama hadlay ceydid labadaba wuxuu yidhi yaa la taaban ninkii sumeeyey ee dictoorka ahaana bere dhaweytoo dhintay lamana dilin wax laguma samayn horta geelijan maxaa faarax ceydid saasay u fadhiday xasan bariise wareysigiisa marka inkastoo xasan bariise awligiisa dadka ceydid necbaa coqod badan ka muuqatay wareysiga xasan bariise wuxuu ku sheegay in uu wareystay 24 Julaay Harun Macruuf anaa jooga been bay ahayd Harun Macruuf afartii bisha ma ahayn wareysigiisa 24 bisha Harun Macruuf wuxuu yiri xasan bariise 4 bisha wareystay ما يستغفر الله هارون معروف يقول أفراد تكبش ورستو ولا حسب بريس أفراد تكبش بورسنة هارون معروف أفراد بش جولاي ورست أصور ناو على ما يهيني يسقوا عافمات قورستي ورستي هارون معروفنا وأوقل قش وأنا حسوستا علي موسى عبد اللي جلالو حرستي إنه يري هارون معروف يا ورستي قال السنين إلهو نحرستو الكونتراتاك سكوا هاي أنا حسوست جل عيديد إكسس كوريسيدا لبني نبالو أقرأ إنترشالي يوسف جلال عمر أنا تيم دو سؤال الله أبن بيوهاي إنه جلال كوريسكر نيك لبات جلالك أخباري أو ريسكر أو إنترشالي أسعدنا يوسف حسن بوانيك حلبانك أقادينك يوها مركا ولا يري قيل وقال يشاكف أنه كدرة إيو عقدت أيو حسن بريسة لا سو فريستا مدش هذا حسن بريسة maxaa dhacay marka wareysigiisa soo laabtay marka waxa ay hormariyay oo idinka sheekeeyay jaal maxaa faarax ceydid qisadiisii geeridiisii yaa idinka sheekeeyay waxaan hayaa kaydkii radio muqdisho on hal cod ka dhinayn ceydid maantu halganka USC bilaabay khudbadii u jeediyay ugu horeysay iyo tii ugu dambeysay ee maanta markuu dhimanayay ma taqaanaa markuu dhiman rabay khudbadii 26 ee ugu dambeysay uu jeediyay uu kula hadla shacabka yaan hayaa fayl dhanba iga buuxda ana personal u haysta wax kasta oo ceydid ku saabsan cod kasta oo baataan aan soo deynayo xitaa waraysiga international laga qaaday qof kale ma hayana kayd ahaan u hayo heesihiisi waxoo dhan kooriyihii xorriyadda kulmiya ceydid garaad كريم نحري ساسيو آمين كريم نحري ساسيو أنا دوبي وكل انتي هاي مركا حسن بريسي وحائس التغي
nin la juxo codaysan marka daaroodka gaar ahaan majarteenku iyo maryaxaanku waxay aaminsan yihiin kiina waa xuma keena waa fiicnaa keena halgamaabo ahaa kiina halgamaa ma ahayn waa waxyaabaha marka juxo oo qaba cuqdad jaan la caydid qaba jaan caydid cuqdad ma qabin ablaas uu caawiye shirka xamar wuu yimid lacagtii uu isbitaalku aadaa jaan la caydida yaa bixiyey ina amsaq ducaale iyo bashir gushaa iyo laga qaada lacagta xali hala siiyo lacag iyo ilma soofi waxa lacagta hala siiyo abshukr al jijo xali Nairobi lacagta bangigaas oo bixi waxa way Abdullaahi Aydid buugiisna uu ku qoray uu nuuxi laakiin ayaga dabeecadooda maxay tahay hadda soo bilaaban marka ay hadlayaan markaas xitaa Abdullaahi saaxiibaa uu dhahay saabuunta uu cuni jiray iska dhahayaan waa dhaqan waliba Aydid gabadha Abdullaahi qabaabtii uu ahaa فيري صاحب يا هاي اسكو ميل لو خري وا دقنك او مجرتين دبيعده ها نيمبا غبي وخو كيري وحوري دارود مجرتين ku jira ma ihba dhanta mid kala gabi wuxuu nacla majardeen ku yaal nolol ma haystaan ya mid kala gabi wuxuu inta habar majarteen iyo habashaq naagaale fiiri wax dhaqan xumo weey laakiin waxa igu daran odaga timuhu cadaadeen in la kiristay oo xasab bareesan la kiristo u noqday oo meesha tagay oo cuqadii isaga personal oo jalciidu qabay qabiilnimo uu qarsan waay intuu fariistay markuu qayb oo leey afka qaad ugu buuxa oo wili caalamiga ahaa ee xasan bareese ee internationalka ahaa oo isagoo marqaasan oo taqsiin u saaran tahay waraysi siinaayo nin kale oo isagoo kala cuqadaysan oo majarteen oo jaxal yiraahdo qodob kale markaan ku darsado xasan bariise inuu og yahay geeri jalciidis ka daay gabadha uu dhalay amiiri halka ay la degan Holland ee gabadha Daawudka u dhashay ayuu soo ogeyn wiligiis soo wacay gabadha asaga u dhalay wixigiisa soo ogeyn iskabada inuu og yahay jalciidis 3 sano ka hor dhintay inuu og yahay iska daay gabadha uu dhaw soo ogeyn taas waa qodob